السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقة اللي والبا ويدين تهي ميل والبا جوكتان ويدين سلامي صاحبي يال سلا هوري وبلان سنين با شيكوين حكمة له قصل يا حرابه إنان هالكان إذن كوغسو قدبيو واتان إذن كبلان قادي مانتا وحان كوهار سنينا شيكادي أو دختر كوبتا موبدي sheekadaas oo u dhacday sida tan laba ruux wiil iyo gabar labadoodaba lagu xaman jiray in ay yihiin dad laga roonayaal ah ama lagu tirin jiray dadka laga aqliga badan yahay ayaa la yiri iisan gayaan seegin oo san gablamine hal isu dhiso dibadeed waa la isu aroosiyay ka bacdiina waxaa dhacday in habeenkii ugu horeysay ay wada jiiftaan ileen waa lamaane dibeed markay wada jiifteen habeenkii adugu kuleelku waa isgaaray bini'aadankuna alxamdulillah shukra bil caalamiin dareen buu leeyahay adugu midkoodna ma garanayo meel hawl laga bilaabo ama sheeko meel ay ku socoto dibadeedna adugu midba geestiisii ayuu isu xogay ama isu xoqay dibadeed gabadhii cidibay iskala daashay ninkiina yaa hadda soomaalidu weyn cad tahay runta ama af soomaali laga warwareegi karee raayihii ama xaniiyihii baa bararay subaxdii baa laga maarmi waayey in dhakhtar la wada aado dhakhtarkii markuu waraystay ee uu weydiiyey mid walba sida loo hayo xaal loo xog warramay oo uu xaal ogaaday ayuu wuxuu ogaaday arrintu halka ay ka qasan tahay dabadeedna waa dhakhtar dawadoodii buu siiyo gabadhii buu sariir saaray wuxuu yidhi adigu calaa kulli xaal wuu baneeyey wadduu baneeyey dabadeed markuu waddo baneeyey waxaa dhacday nin wiilkiina sidoo kale ilan waa dawo dibadeed wuxuu yidhi halkaa maaragtaha ku garaac markuu ku garaacay markii waad iska garanaysaan markay biyuhu soo dhow yihiin waxaa loo baahan yahaa hawl orda dhakhtarka markaas waa idin soo kala sheeka dhaafee wuxuu yidhi markaan birta ku dhufto aduguna halkaas kub ku sii wiilkii buu ku leeyahay dhakhtarkii kub buu siiyaa wiilkiina asaguna kub dibadeed markii wiilka ka soo dhawaadeen buu yidhi aw dhakhtar kubta noo badi way dhaaftay dee kub iyo kub way dhaaftay xaal kuu dhaafay sheekadaas baa maanta idinla wadaagayaa haddee qaar baa dhihi doona anshaxa kuma wanaagsana laakiin sheekada haddaan sideeda looga sheekaynin micno ma yeelanayso saaxiib yaal waad salaaman tihiin qurqur TV ku xirnaada sii sheergareeya waad mahadsan tihiin ayada iyo sheekooyin kale oo xiiso lehna waan soo wadaa